السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحويني مصبيحي عبدي وزير رضا للصعودة مدحدا كله بنتان كله يكون مدش الجوع لما تبى والد السلامية أنا واحد خير حالي dhowr qodobka ugu horeeya waxa weeyaan horta siyaasad waxa looga baahday ma ahayn inay dadka wax siiseen waxay ahayd dad wax qabsanaya inay taakulayso kalena hagto ayaa loo samaystay laakiin waxaad moodaa inagu muxuu inoo keenay iyo muxuu inoo siiyey baynu nidhahnaa taasi markaa dadka waxaan doonayaa inay u fahmaan baahida dowladda inay noo qabtaa maaha xeeradii reer bani israa'iil inay samada inooga keenaane waa inay innaka inagu booriyaan inaguna taakuleeyaan waxqabsashada waxaan uga gudbayaa oo kale waxaan soo noqon gobolka taasi tii guud ahaanad bay ahayd gobolkaanu soo noqon waxaa la yidhi ummad hadday horumar doonayso saddex ayuunbay ku dadaashaa ta ugu horeysa waa dhaqaalaha ta labaadna waa tacliinta ta saddexaadna ta ugu horeysa waa dhaqanka ta labaadna waa tacliinta ta saddexaadna waa dhaqaalaha markaan awdal u soo noqdo dhaqan waan haynaayo waa taa dadkii oo dhan maanta hayiin iyo dayiin wixii afka soomaaliyeed ku hadlaayay halkan ugu soo huteen iyadoo waxa ay u yimaadeenna ay tahay waxbarashada iyo biyaha sida fiican loo maamulo taasina ay u tahay salka yacni sababta ay meesha u yimaadeen ogaada waxbarashana way soo doonteen dhaqankeeda iyo biyahaasina way nageeyeen taasaa markaa maaragtay dadkii ay heleen tacliinta waan haynaa dhaqankiina waan haynaa dhaqaalihii baan u soo noqday dhaqaalaheenna 10 sano ka hor magaaladeennana siday ahayd wayda loo hoydeen bulshadeennu waxay bilowday waxay ogaatay in baahida weyn ee dhaqaale inoo keeni kartaa ay tahay dariiq waa la bilaabay dariiqii aan bilownay wuxuu soo jiitay indhihii dowladda xukuumadda ayuu soo jiitay dowlad waa xukuumad dowlad shacbiga iyo dowlad iyo xukuumadda wada ah markaa waxbaan oran lahaa dowladda hoose tana laga daayo xukuumadaha ha la yidhahdo afkaalaadkiina sidaas ayay sax ku tahay local government waa xukuumad dowladina waa state way waa qaran wuxuu ka koobay sidii gumaysigii ma joogno raciyadda iyo lahaa dowladda maanta innakii baa shacbigiina dowladdiina waa xukuumaddeennina waa dowladdii taasina markaa waxaan leeyahay indhihii bay soo jiidatay ku dayashana way keentay dadkii kalebna ay inagu daydaan maxay keentay tii xukuumaddii ugu horreysay ee kulmiye inay bilowdo taakuleyntii ugu horreysay intii aynu samaysanay dhowrkeennii kiiloomitir wuxuu keenay in in xukuumaddii iyaduna ay kaalinteennii qaadato oo ilaa iyo maxaa ku dhahdaa kalabaydh iyo isku soo xidho boorama inteedii kale ayay keentay maxay tiinad u soo seetay in magaaladii la yimaado oo ay fududayso imaatinkeedii maanta magaaladaasi haddii hortii hore ay 3 kilomitir kuub iyo 2,500 mitir kuub oo biyo ah oo aan kaltan lahayn cabbi jirtay maanta iyadoo kaltana waxay cabtaa 6,400 mitir kuub bay cabtaa inta guryaheeduna waxay marayaan maanta ay biyuhu ku jiraan 12,000 bay marayaan waxa idinka arkaya fooqaqa la dhistay idinka arkaya sida waa camiran tahay dariiqaasaa keenay markaa hadduu kii yaraa intaa keenay kii kale ee Jabuuti iyo boorba isku soo xidhayena iyana sababteedii bay xukuumaddu kaalinteedii ka gashay waxaad ogtihiin madaxweyne muuse biixi inuu saxeexay waddadii Jabuuti iyo boorba isku xidhaysay inuu saxeexay wadadii 60 milyan baa loo hayaa waa la dhameeyey hawlihii oo dhan kolley wasiiradiina way joogaan bilowgeed naqshadiina waa la dhameeyey waxaa loo imika bilaabmaysaa inay warqaddii ka soo guurto oo waddadii dhulka lagu arko dabeetana halkaas inay soo jiidato معاونويك كله
iyo ummadaha kale adduunyada inay soo jiidato marka weel la helaa dabeetana maarata wax lagu raadsadaa weelkii ugu jiraa weelkii waxna way ku jiraan wixii kale in ilaahay wax ka rajaynaynaa inaynu innakoo dhan ka wada maarata hawlgallo oo noogu maarata yani horseed yahay madaxweynaheeduna taasina ilaahay baan ka rajaynaya halkaa waxaa iman doona dhaqaalihii aan doonaynana wuu iman doonaa innakaana budda u noqon doona inta kalena way ka faa'iidaysan hargeysihii booramo isku xig jabuuti ilaa cafar baa iman xagganaa laga iman iyo diri dhawaa lagu soo xidhmi doonaa waxaynu noqon doonaa dad isku wada xidhan kow waxayna fura u noqon doontaa isku xidhka awalba looga horreeyey waddadaa laga sameeyey berbera iyo isku xidhaysa koridoorku maanta dowladaha afrika isku xidhaysa tii labaad isku xidhaysa bay noqon doontaa waa la wada barwaaqoobi taasina waxa weeyaan ta aan ka lehay maaragtay horumarka iyo wixii aynu qabsannay wixii laynala qabtay iyo waxa aan filayno